السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سو dhawaada dhammaan akhyaarta ku xidhan Soomaali Network Classroom insha Allah kooriskeena CMD lecture-kan sagaalaad ma hayno ka tobanaad ku dhamaaday insha Allah rajeynaya saan hore u sheegay kooriskan CMD ga waxaan ugu talagalan waa introduction si guud ah CMD ga inaan ka qaadano maadaama aan macaayida kale ee Soomaalida insha Allah lagu dhig laakiin dhowr bilood ka bacdi ama marka loo insha Allah waqti nasiyo ayaan mar kale ka diyaarin doonaa oo kanban si wadi doona laakiin koorasaan marka video soo socday ugu dambeeyo ayaa suurtagal ah hadii kale wax kale aan arkaan insha Allah aan ku sii darno waan arki doonaa ama waqti aan u helno okay lecture-keen wuxuu noqon doonaa waa lecture-kii sagaalaad waana Cabdiasiis Axmed Ducaale iyo Soomaali Network Classroom maanta waxaan eegi doonaa haddii la idmo dhowr awaamir baan eegi doonaa amarka ugu horeeya aan eegi doonaa xawayaan sida CMD ga loogu furaa shayga aad rabtid taa hore aan soo aragnayo folder ray marka tusaale CV oo soo gashay folder ka tsigashay folder ka aka mar walba ko la CD inta anaga joogna gudaha ayay inta folder iska guda galaan dushiisa ku qoran jirnay CMD detonenter automatically says CMD ga noogu furin jiray ma taa hore naqo inta waxaan eegi doonaa sidee C partition kaaga iyo D partition kaaga aad ogaan karaysaa ama partitionada kale marka hard disk-ga uu leeyahay ma NTFS ama waa FAT ila way kala naqaan labada nooc waa file system jiray milo yaqaan new technology file system NTFS milo yaqaan file allocation table oo FAT ka ah marka sidoo ogaan karaysaa waa sida tan imka tusaale kale sideena u fiirso hadaan DSBC maado imka sideeda hadaan rabay inaan ogaado NTFS ama waa FAT waxaan iman jiray properties-kiisa marka properties-kiisa imaado file system-ka halkaas ku ogaarki jiray oo file system-ka haduu la idin ku waa maxay waa NTFS weeyaan sida kale laakiin aan ogaan karayaa waa maxay sida galaan aan ogaan karay intaan waqtigaas oo dhan igaga lumin waa kan right click koodan la properties ka koodtig la aan halka ka eegla anoo jooga daaqadeeda madow ayaan ku ogaan karay marka daaqada marka inaga soo xidhorta daaqada inaga soo intan dhaano u fiirso saan ogaan karayna waxa inaga qorina amarka loo yaqaano CHKNTFS marka kaan rabna ma C mise waxaan rabnaa D marka waxaan qoraynaa CHKNTFS waxaan qoraynaa maxay KNTFS حاد CHK لو سو غابيي وا check NTFS waxaan check gare CD inta radan dhaho waa inuu sheego wixii baalkii marka yar baan sigi doonaa okay wuxuu lagu leeyahay file system kani waa maxay CD-da isticmaalayso waa NTFS imaka flash baan haya flashtayda tijaabiyo iyaduna nooc ay tahay aan hadalka wada okay computer-ka wana galiyay aan eego okay flash ma soo gashay okay flash waa taa soo gashay marka flash to maxay waa waxaan rabaa inaan ogaado ma C ba mise waa waxa jeeday iyaduna ma NTFS am soo FAT si waan ku sii ogaan karay inta tago properties-kiisa iyaduna maxay waa FAT 32 Soomaali markaan ogaado سوون كوغان كاري سيدا كلام كوغان كاري أنا هالكن شو بحن قرية CHKNTFS بي هذا لحظوظ طفلاشتي بي هاي هلا يجو وإي مركا بان ليه هاي يدنا هلا يجو سوا كان ناشي جوا فات 32 وسيدا كلام وين يجو كوغان كاري أنا ده أنا سطع هذا أنت رايت كيلو كله فنا بروبتيس كيس أنا جا كاي بل أنا يجو دي أنا يجو دي يدو أم حي يدو أنو سمعتي هواي ما shaqayso waan ka saaray laakiin aan halkan ku tijaabino imka daan dhaana CHKNTFS D somahan xun oran doona waka cannot query state kama soo jawaab karayso waayo way xumaataana hore uga saaray markaas isku ogaan karaysaa file system-ku isticmaalayo partition-ka aan hore uga sii socono markaanu joognay halkan waxaanu sheegnay markaan sano kale aan dhahno inaynu halkan joogna aan file furi karayno oo anigi sheena haday imka dhaano CD desktop ko kale imka hadaan tagno tusaale kale file baan imka abuuranay file aan abuuran file ka soo oran jiray null baa la oran jiray waxay tape la qori jiray null baa la qori jiray file ka haduu la idmo magac inoogu bixi file ka halkan ku abuurayno magaciisa waxa loo yaqaanaa kala Somali hero baa loo yaqaanaa .pdf weeyaan ama .txt bay noogu daa oo pdf ka ku furan inka file ka inoo abuurmay hadayna inagu halka joognaan qorno magaciisa oo Somali hero.txt file ku noo furmi doona inkasta waxba ku qornay soma haddii waxa su'aala inagu halka joogna barnaamij ma furi karayna
ها كان تلقى قر لين سال برنامج كله كنترول بانل oo kale inagu halka joogna control panel ka furi karayna oo waxaan qori karnaa control panel waka control panel saasoo ku furo barnaamijka duntidu waa kan ku furi karaysa adoo halka jooga sala barnaamijka furayna waxa naga soo qada weerkii inka soo weerku isagu yahay MSL raacini adoo laakiin barnaamij wala aad rabtinakiisa haka wad ka soo kacinaysa haka halka ka qorqori lahayd taasna waxa loo yaqaanaa si ay barnaamijka open aad ku furi lahayd waxa loo yaqaanaa CHK task amarka waxaan ku arkaynaa dhammaan iskaajwalada operating system-keena ku socda halkan computer management halka ka qori lahayd imka tusaale markaan qorno computer management aan open dhahno waxaan arkaynaa dhammaan iskaajwalada computer-keena ku socda oo dhan ayayna wada arkaynaa smarty task iska loo arma karana dhammaan wada arka task la riyo shaqooyin kooda laakiin aan daaqada madow jooga waan arki karayaa iskaajwalada ku furan oo dhan seen ku ogaan karayaa loo qorayaa CHK waxaan SCH task oo macnaheedu tahay waxa tustaa task shaqooyinka ka socda marka anti SCH mar bay shaqaadka SCH task soo masaasan saxban khaldaya ana eegno wa SCH task oo كم هاي هو SCH task اوكي لكن ان gudaha galade CD one drive ka an gudaha u galo اوكي an qoro SCH task اوكي SCH task adigu saasad ku ogaan karaysaa computer-kayga operating system-kiisa oo wuxuu loo tusilaayay maadaama drive ka saaray taas keeni karaysaa haddaba dhammaan wixii uu ku tusay oo dhan haddii rabtida meel ku save gareyso kale waxa leedahay CHK waxa maanta u tusisay failka igu save kare failkii inta dushay tusaale oo kale si kale aan kugu dhigo imika waxaan rabaa CH baan waxaan galay tusaale oo kale ii sheeg desktop-ka kale galay tusaale desktop hadana waxa dhex yaala oo daayir dhaho wuxuu tusay waxaas oo soo haddaba waxaan rabaa waxaas oo dhan qoraalkaas oo dhan from halka laga bilaabo in la save gareeyo rabaa oo fail lagu save gareeyo soo garatay marka waxa oran doonaa daayir waxa leeyahay u fiirsa saaxiibkayo qoraalka u fiirsa waxa leeyahay daayir wixii desktop-ka yaxya loo qoraalkan ah waxaad igu save gareysaa file loo yaqaano our file magac u bixin our file loo yaqaano oo .txt noogu save gareeyaan le uu noogu save gareey imika hadaan file ka tagno oo desktop-ka yaala file kaan qabano file ka loo yaqaano our task waxaan oo dhan inaga soo kala yareeyo file kay noo raadi our file ayda imka hadaan furno waxaad ka arkaynaa qoraal imkaan furno horta dhamaan qoraalka sawirtinka ka yaala oo qoraalka ka yaalay mala socota oo ka inoogu save gareey file ka oo ka inoogu save gareey hadaan imka iska soo gaabino mala socota volume ilaa halka aku ka soo bilaw qoraalka from halka ilaa yato halka marka daayir calaamadii ka weynta beertii lagu save gareynay okay waxaan imanaynaa wixii kale marka inoo haray fairna waan soo garano waxaan ku ogaanaa version operating system-keenu leeyahay hadaan ku qornay ereyga loo yaqaano fair Windows keena version 10 intaas ku soo gudbina 10 kilo. Assalamu alaykum.